bishaan barakaysan oo ilaahay inagu farad yeelay oo intii badnayd aan soo soonnay wax yar oo maalmaahina ay ka hareen maxaa la rabaa qofku inuu ka kasbado bishaan sababaha ugu waaweyn oo loo jireeyay soonka waxa weeyaan inuu qofku ka kasbado taqwa Allah ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala in iimaankiisu uu ziyaado taqwadiisu markii hore meeshay joogtay ay ka ziyaado sababaha loo jireeyay siyaamka asbaabahaas kuwa ugu waaweyn waa taqwa Allah bal ahlu cilmigu waxay yiraahdeen wax kaste oo faa'iido ah oo soonka qofku uu ka dhaxlo uu ka helo waxay ka dhalata arrinkaasi uu ka dhalanayaa taqwa Allah ilaahay cabsidiisa waayo qofku markuu soomo oo cunadii uu ka soomay cabitaankii uu ka soomay jimaaci uu ka soomay wixii soonka jabinayo oo dhan uu ka soomay waxaa ku abuurmay cabsi ilaahay bisha ramadaan inuuna waxaba cunin ilaahay ka cabsado inuuna waxaba cabin ilaahay ka cabsado cabsi ilaahay baa ku abuurantay cabsidaasi maalmahaas oo dhan way u ziyaadaysaa markii bishaasi ay dhamaato haddii ilaahay ka aqbalay wuxuu haystaa rasiid iyo shidaal fiican iyo sahay fiican oo ka celinaysa inuu dambigii iyo xumaantii ku laabto imisa ayaa hanuunay bisha ramadaan markii ay dhalatay oo ay soomeen ilaahay hidaaye iyo hanuun uu siiyey aynan hore u helin culimada sacuudiga nin ka mid ah ayaa wuxuu yidhi habeen baan imid xaramka aniga iyo aabbahay iyo awowgay oo isla soconna markaan xaramka u soo dhownahay tahajjud baan rabnaa inaan tukanno waana waqtigii 10kii dambe weey ayaan waxaan aragnay nin gaari u daaran yahay muusig u shidan yahay oo aad iyo aad muusiga kor ugu qaado codkiisa oo xaramka agtiisa iska ahwaalaysan oo halka taagan oo heesahaya oo heestaas u daaranta markaas aan ku leexdo la hadlay buu yiri waxaana idin buu yiri caawo kale waxa la akhriya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ma ahan caawo kale habeen hees iyo muusiga lagu dhafra ma aha khalqiga ilaahay xaramkii bay ku qulqulahayaan aduguna halkaana muusiga dhageysanaysa salaad aadan xaadirahay istighfar aadan ilaahay weydiisanahay ahwaashaadu waasi markaas waxaan ugu celiyay buu yiri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ducadii buu xifdiyay markaas ay ku celi uu xifdiyay waan ka tagay buu heestii buu damiyay qalbigiisa ilaahay nuur dhigay iyo hidaayo maalmihii u dhimanaa ayuu cibaadaystay oo soomay muddo 10 sano ka bacdi ah hayaan wuxuu yiri anoo meel darsi muxaadara ka jeedinahaya oo 10 bixinahaya waxa ay yimid nin dhalinyaro ah oo daruusta ka soo qayb galay oo ay ka muuqato cilmiga nuurkiisa uu ka muuqdo oo sunnada iyo khayrku uu ka muuqdo ay yimid markaas wuxuu ma garanaysaa mada ariwi waxaan ahay ninkii habeenkii Allah hadashay oo ducada xifdisay baan ahay ayadii ba ilaahay hidaaye iyo hanuun igu soo dhiibay bishaan khayrka ay leedahay caadi ma aha waxyaalaha qofku uu kasbanaya waxyaalo aad iyo aad u fara badan weey ilaahay cabsidiisa qofku markuu helo adduun iyo aakhira waa u dhameystiray ilaahay waxa uga baqdaa salaadaada oo waqtigeeda ha dayicin jamaacada ku tuko ilaahay waxa uga baqdaa soonkaaga ha dayicin ilaasho ilaahay waxa uga baqdaa maalkaaga xalaal ka soo shaqee xalaalna ku bixi ilaahay waxa uga baqdaa amaanooyinka ilaahay subhanahu wa ta'ala ama ha ahaata diinko dhan ama khaas ahaan waxa weeye qaraabada iyo dariska iyo saaxiibada waxa amaana in kaga dhakaakaala dhaxaysa ilaahay uga baq cabsida ilaahay meel kasta ayay gelaysaa walidaalika qofku waxa laga yaabaa inuu jaanib ku fiican yahay khayrka ah
لكن جانبك كالآخرة وكو عذاب مت نبي عليه الصلاة والسلام وحنوشة مالنت قيامة إنه إيمانا ينين مفلس وأن وحبها السن صحابته وحي إلى مفلس مركو نبي ويدي مفلس وحا ونقانا نين أن حولنا اللهين مالنا اللهين لعقنا اللهين وحبها عن هيس مركاسا النبي يقول مفلس وحا ليرا أمد إذا نين لا إيمانا إياه صون إيا الصلاة إيا الصدقة بدن أيو لا إيمانا إياه wuxuu kaloo imaanayaa dhinaca kale asagoo midkaan caayay asagoo midkaan dilay asagoo midkaan maalkiisa cunay buu imaanaya markaas xasanaadkiisa kan la siinaya oo kan la siinaya oo kan la siinaya markay xasanaadkii ay ka dhamaadaan ayaa waxa weeyaan dambigoodii inta la soo qaado dusha laga saaraya markaas naarta lagu la ridaya ninka isaga oo aakhira imaanaya u fiirso صونكي يا صلاتي يا صدقتي إلهي واكا أقبلي وأنا كسو باصة امتحان كودي واكو باص تقيبو دنعكاها لكن وحو كدعي دنع معاملات كدتك ولا معاملون يبو كدعي امتحان كي قيب تاسو كدعي قيب تاسو أنا حوق بدأتو وحي كانت النار تيرو قالو ضد بدن مركا أيغو سومية أو صلاة أو صدقي سنية أيام مسنو وحويان أمانة دي إيا وحويان معاملات كدتك ayaa aakhira loo soo joojinaya oo ay ku cadaab galaya marka waxa la rabaa qofku salaada iyo soonka sidoo u ilaalinayo inuu sidaas si lamida u ilaaliyo muaamalaadka asaga iyo dadka kala dhaxaysa oo dhamaantood ilaahay uga baqa ayaa la doonaya ahlu cilmigu waxay yiraahdaan taqwa allah marka la leeyahay ilaahay cabsidiisa la leeyahay macnaheedu waxa weeye an ta'mala bi ta'ati allah ala nurin min allah tarju thawab allah balu firsu إن طاعة إلهي سميسد وإلهي طاعتي سأتكو عمل فشيد للتمادد أذو ولي بعلم أوله وعلم كسوغان يعني ننجهل كاهين إلهي ثوابك سنة رجينا هي صدح لا أهل موضوعي عبادتي بالله إيمان إيسا علمي بقول لا هاي والله إيمان إيسا إلهي ثوابك سنة رجينا وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله inaad macsida iyo dambiga aad ka tagtid adoo ku sugan cilmi ku sugan oo ilaahay inuu kugu cadaabahayo oo dambi ay tahay og waxaad uga sagaysan ay tahay ilaahay ciqaabtiisa cabsi ah ka baqays labadaasi markay ku kulmaan dhinaca macsida saas ah uga tagtid daacada ilaahayna sida ula timaadid qofkaasi qof taqi awiya walidaalika biyiri al-imam ad-dhahabi fala taqwa illa bi'amal إلهي لقى عبصدا ما شرت إلا عمل فل مويان وإن قفكوا عمل فل ولا يبادا هذه قفكوا وح الله وح الرب سمينا هاي أو صنع عمل فل سمينا هين وحويان تقوى دي ما هيو ولا تقوى إلا بترو من العلم والاتباع تقوى إلهي نكوسر توبي ما يسوع عمل كوسر توبي ما هيو إلا علم إن الاتمادد مويان يا اتباع النبي قال راعدد سكة العلم قلفت يسوع حويان نحر يالا ما هيو ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص انتاس كبعدين وحال ربا عمل كي علمي مركا للتمادد إخلاص يا إلهي درتينو كاي هاي بالله ولذلك قفك إلهي سي تقوى داس استقامة يتوصناش أيها لا وحارمنا مركا صون كينان جبدا دلن يرد قار أهان سي قوني ما وحي كل من دونا وحي أي كسقنايين ما سوى ويا سيدي أقصو حرودين سوق وحي يالي أو دنبيغا يا معاصيدا أها سيدي أقصو حرودين أي خير كاس كو توسنان دونان وإنان كددالنا وحويا إنان توسنانو صاحبدي حما سيدي أنا أقصو تغنا إنان نكو لابن هيسيه اللي دغيسن جيري إنان لغو لابن أخلاق دي حميد إنان لغو لابن وإنان نفتينا كو حكمينا sida soonka waa masaajida loo soo camirahayo markii soonku dhamaado waa inaan nafteena ku xakameynaa duruusta cilmiga ah iyo khayrku meesha uu ka socdo oo qofku uu naftiisa ku laazimiyaa walow layla waahida asbuuci laba habeen saddex habeen ba ha ahaatee inuu darsi soo qaato diini ah maalinki diin inuu dhageysto inuunan qofku marnaanin ee uusan noqonin ramadaan ka ramadaan qof ilaahay kaliya caabudo markaas ramadaanka marka la gaaro dambiga ka soo xarooda markuu dhamaadana ku laabto waa inuu soo qofku noqon dadka muttaqiinta wa awliyaa Allah
إلهي بان الشيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ذاتك متقين تا وأكرم الناس عند الله إلهي أكتي سكوا وكرام بدنوية إلهي بأرنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتي سكوا إنكوا كرام بدن وكوا إنكوا عبس بدن وحلقة قرطان مرون ونأكسن تقوى إلهي وحلقة هلا معية الله إلهي بمعي أهانية waxa ilaahay micigaaga la ahaanaya ilaahay waa ku jeclaanaya waa ku toosinaya waa ku hiilinaya waa ku ilaalinaya ilaahay wuxuu leeyahay inna allaha ma'a alladheena taqaw walladheena hum muhsinun waxa ilaahay micigaaga la ahaanaya dambigaaga ilaahay inuu dhaafo xaqa ilaahay inuu ku kala furayo baadilka ina kala garatid ya ayyuha alladheena aamanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum waxa ilaahay siinaya qofka muttaqiga oo ilaahay ka baqa dhibaato kasta iyo ciriiri kasta iyo hammi kasta markuu ku yimaado faraj baa ilaahay uga furaya waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib qofka ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala waxa ilaahay u yeelaya makhraj oo dhibaatooyinka uga baxo waxaana ilaahay ka arsaaqaya meel uu ka maleysanahay waxa ku helaysaa taqwada ilaahay arimahaaga in lagu fududeeyo kuwa adduunkana in lagu fududeeyo kuwa aakhirana ilaahay ku fududeeyo إلهي وحلي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبقى أرنتيس إلهي وحو كدق يا فضيت إلهي وحبك وعصلين معي ما دام آتها يقف إلهي حرير كوللي هي هجاتي إلهي أرمها وكو فضينيا هذا يقول تاي ماشي وقف عم بإلهي كاجا سهلي هذا أدوية مال أي تاي ماشي وقف عم بإلهي كاجا سهلي هذا عمل كآخرة أي تاي ماشي وقف عنا وخير بدن بإلهي كاجا فضينيا هذا صاحبتها كوا وقف عم بإلهي كوا فضينيا هذا درستها كوا وقول أحسن بإلهي كوا سؤالينيا أرمها إلهي وكوا فضينيا هذا إلهي كبغد في السر والعلن مركات كلجاتها وميل قرصون أتشوكتي وعدكو أركي سأن لارك هي مركات ضدك هرشوكتي لو أركهايو هذا الله بدأ كل بإلهي وقبغد سبحانه وتعالى وحد سمين يسد يا واحد اعتقاد يسد إلهي سبحانه وتعالى أمورها وكوا فضينيا تقوى الله وحاكوك ليسا إلهي ددك عدو بقى شرطه ده إلهي نكا حفظيه إلهي كوى عدو بقى إلهي نكا بدباديو كا إلهي وحليا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذا صبرتان وإلهي كعب ستان سرقول كودا يا هجر سجودو وحبايد يدي بمهاي وحو يدي بمهاي ماله إن الله بما يعملون محيط إلهي ما وحي سبيري أن هريري وفشلنا هيا maalin kasta oo cadawgu ay maleegaan sirqool iyo dhibaato ay dadka muslimiinta u maleegaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka badbaadinaya intaas oo muhaawalaat ah oo isku day ah ayay isku dayayaan inay baabiyaan oo ay fasaadiyaan laakiin dad muttaqiina oo ilaahay ka cabsanaya oo ku jira ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadna ilaahay ku xifdinaya jalla wa ala waxa kamida al-fawz bil janna wan najat min an-nar taqiinimada waxa lagu helaa oo taqwa Allah lagu helaa قفك إنه عذابك إلهي كبدباد وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إلهي سبحانه وتعالى إنه كبدبادي عذاب كيسا جننا وكل ما وجننا إلهي سبحانه وتعالى أوهلا سيدا أسا مركا وحوية التقوى الله كعبسقو أي قول لي هذا فضائشة واوين بشان مركا مالمها أقدم بيا وإنه كد دالنا إنه كسبنه استقامة يتوسناشه استغفارت عن بدنا توبتكن كان بدنا واي الاعمال بالخواتيم اعماش waxa lagu khatimo ugu dambeeya ay cibradu tahay waxa laga yaabaa qofku inuu soo fiicnaa laakiin maalmaha ugu dambeeya uu fasaado oo qadka uu ka baxo waxa laga yaabaa maalmihii hore inay u xumaa laakiin maalmaha ugu dambeeya ilaahay intuu hanuuniyo khayrka uu waafaqo midkii intaas oo sana soo soomanaa inuu ka fiicnaado asagu oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf uu siiyo oo dadka naarta lagu xireeyo lagu daro oo kuwa leelatul qadriga la waafajiyo ilaahay ku daro haduu qofku toobad iyo ikhlaas iyo daacad uu la yimaado ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisana si sax ku qaabilo ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo